munaasabadan ayaa ahayd munaasabad dhaqameed ee laba beelood oo walaalo ah oo ay kula kala wareegayeen gashiga laba nin oo hore loogu dilay deegaanka Og. labadaasi marxuum ayaa ka soo jeeday deegaanka Cegaag, waxaana munaasabadan oo lagu qabtay geed hoostii ka soo qayb galay labada arda ee la kala wareegayay gashiga labada marxuum ee hore loo dilay. ugu horreyn waxaa munaasabada ka hadlay salaadiinta dhaqanka ee labada arda ee la kala wareegayay gashiga marxuumiintaasi, waxayna si qoto dheer uga sheekeeyeen dhacdooyinka dhacay iyo weliba qaabka looga heshiiyey. magtoodiiba meesha maanta lagu bixiyey waxaa bixiyey beesha la Cali Bare waa 200 halaad xilliguna waxa weeye kowdii bishii afraad ee 2020 waxa aan u sheegaynaa dadka deegaanka ee aan u nahay waxa iyagaas aan mas'uulka u nahay in aan waxa u kala qaadanay dadka inaanu nabadgelyo u doonayno inaanu nabadgelyo uga shaqaynayno. waan gudoonnay geela 200 halaada ee magta ah ee Cali Bare bixiyey annagoo beesha hayaaga ah waan ka gudoomanay kowdii Abriil 2020 weeye yoomku sidaas aan u gudoomanay. dhankooda waxayna munaasabada ka hadlay saraakiisha booliiska, waxayna ku bogaadiyeen labadan beelood tallaabada ay qaadeen, iyagoo ugu baaqay dadka deegaanku ay tallaabadan mid la mid ah qaadaan marka dhibaatooyin noocan oo kale ay ka dhacaan deegaamadaasi. baro saabku sheegay alxamdulillaah rabbil caalamiin hawsha maradii nabadgelyada ugu dhamaatay. annaga booliis ahaan kulay amniga un baad xil naga saaran yahay inaan mar walba sidaa ugu dadaalno idina aad nagala shaqaysaan. odayaasha labada dhinac kuwa magta qaatay iyo kuwa keenay aad iyo aad u mahadsan yihiin, iyo odayaasha kale macnaha dhexdhexaadka ahaa dhammaantiin aad iyo aad baad mahadsantihiin. geedka nabadda la yidhaahdo horena loogu nabaday maantana ay tii nabadda hay taallo culayskii weynaa ee gobolka Saaraana maanta uu halka ku degay ee ahaa beelaha muddada 7 sannadood ah yaa wax kala galeen ee walaalaha ah ee isu soo ururay ee isu yimi ee kala qaatay wixii annaguna aanu kaga dul shaqaynaynay anigoo ka mas'uula taliska aaga. arrin weyn baa maanta halkan ka dhacay oo nabadeed oo guud ahaan gobolka iyo dadka deegaamadan ku dhaqan dhinacay doonaan baa ka soo jeedeen. arrin weyn oo culays ku ahayd ayaa ka dhacday maanta, gaar ahaan labada beelood ee wax ka dhaxeeyeen. labada beelood ee dhibaatadu kala gaadhay maaha beela ay hore dhibaato u kala gaadhi jirtay. arrintaasu shil iska dhacay bay ahayd, dhacdadii Ogna way ahayd. waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa runtii, inkastoo arrintu yara raagtay haddana beesha wax bixinaysay dadaal weyn bay samaysay oo inay xoolihii oo dhan maanta keenaan dadaal weyn bay ahayd. waxaa kaloo iyana halkan ka dhacday gobonnimo aad u weyn oo ay beeshii magta qaadanaysay ee reer Cegaag ay samaysay. runtii gobonnimo weyn ay xoolihii marisay, aanay wax sii siitama ka yeelin. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaana ugu bishaaraynayaa gobolka Somaliland deegaamadan oo dhan in arrintaasoo nabadgelyo darro ku taagan dadka ahayd ay maanta si wanaagsan u dhammaatay. ugu dambeynna waxaa munaasabada soo afmeeray gudoomiyaha gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi, waxaana uu sheegay in arrintani ay sal weyn u ahayd ammaanka gobolka Saraar, waxaana uu xusay in heshiiskan maanta laga gaadhay dhibaatooyinka hore u dhacay ee ka dhex taagnaa labadaasi beelood ay sal weyn u ahayd ammaanka gobolka Saraar, waxaana uu labada beelood ku bogaadiyey tallaabooyinka dhanka wanaagsan loo qaaday. geedkan maanta aynu joogno waa geedkii nabadda, barwaaqana way dhacdo, roobna wuu daay. gobolka hawshan maanta nabadgelyada halkan u nimid waxa weeye runtii hawl aad iyo aad muhiim u ahayd. waxaan uga mahad celinayaa labada qaybood qolana ay geela maanta bixinayso, qolana ay la wareegayso ee diyada qaadanayso. hawshii hore ee ka dhacday magaalada Og halkaasay ku gabagabowday, nabad baa ka dhacday, gacmaha la isku saaray. waxaan dareemayay in ay marka hawshaa la soo qaado ay rag badan madaxa hoos yara dhigi jireen, laakiin maanta gobolkii baa isku furmay oo maasha Allah alxamdulillaah rabbil caalamiin. wixii kale ay noo harsanay nabadgelyo ku saabsanna waan dhameystiri doonaa. Axmed Saciid Xasan, Axmed Shimaali, deegaanka Og ee gobolka Saraar.